ugu dayanaysaa oo jirkeeda u qaawinaysaa maciiday ku dayatay weyday macaayishan cid lagu dayda ahayn maciidaad ku dayataad weyday maxaa faqriga ka dhigay diin faqriga ilaahay kuma siinin ilaahay wuxuu ku siiyay diin hadan oo dhinac walba buuxda walaalayaal dumarow ilaahay ka baqa dumarow waxa ku dadaashaan sitriga iyo asturnaanta iyo cafaafka iyo dhowrsoonaanta dumarow ilaahay ka baqa oo ilaahay nafihiina uga baqa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay dadka naar gelaya ugu badan ee uu arkay inay dumar yihiin على نبي محمد هدانو دمر نقي محانو رقدو وغا بدنay naarta rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waa ka macsiye badantiin dumar quruxdiina qaawinaysaan ee shaariiciyada la maraysaan ee suuqa ka dhigdhigaysaan iska daaya maxaad rakhiis isaga dhigaysaa isagoo ilaahay qaali ka dhigay gurigeena iska joog buu ilaahay kugu yiri waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula khatarteeda leedahay walaalayaal waalidkeed ba mas'uuliyadeedii la saaray maalinta nin doonto inay raacdo waxa loo sameeyay wado ilaahay iyo rasuulkiisu ay ka raali yihiin oo la mariyo ayaa loo sameeyay waligoodii laga soo doono markay nin gacantiisa gashay ilaahay mas'uuliyadeedii isagu saaray ilaahay jalla wa ala mar uu gabadha muslimada ah hadaad islaamka u fiirsato mar karaamadeeda ay meel banaana u dhacday ma jirto ilaahay jalla wa ala waa idin karaameeyay karaamada iska qaadina wax kasto waxa weeyaan la kantarooli waaya mushkilad bay yeeshaan